horta kule waad salaamay horta fildigeyga ma ah hadda doorash iyo laga hadlaa dhowr iyo tobankan qodobna waa arka mid waa la qabaayo 1 November qorshaa bilaabanaya la yiri lama dhihin 1 November waxa bilaabanaya qabanqaabada ama soo xuridii lama dhihin qorsho waa taqaan intuu soo karaa lama sheegin tan kale ergo 101 qof soo xulaysa la yiri wax soo dooranaysa ergada yaa soo xulay odayaasha laftooda soo xul ahaa imaanaysa marka ilaa qabiilada laba odayna waa qabaan odayaasha hadda joogana xildhibaana xulay maahan qabiilka ah kuwiis hadda Soomaaliland waxa leeyahay labadeeda aqalba inta lagu doorana odayaasha Soomaaliland ee xamar joog waa kuwa wasnaqaan maliisa laga soo qaadaa wasaaradda arrimaha gudaha oo Hargeysa kuwii 2016 waa diseen si u joogeen ma tagin inta iska joogaa wali qaran Nairobi tagan xagga laga waca ka badan ma aha dhab ahaan odayaal dhaqan odayaasha dhaqanka soo xaluuq oo beesh matal meeqa odaya hadda dadka wax dooranaya ku jirto oo ah odayaashii beeshaas ay dooratay ee odayga u ahay bas waa oday hotel joogo oo magaaladan cimaamad iyo wax lagu siiyay iska joogay qabiil wala yaqaan ninka diyada u qaado xeerka qabiilada kale ula galo ka kiisaas ay joogo inta tan kale politician ma yihiin laakiin runta in la isaga hadlaa fiican waqti yaa saxiixay meesha aan tiri madaxweynayaasha maamul goboleedyada soo wadhay u soo naqay iyaga legitimate ka war hal din maxaa magaciisa dani bis aad doorasho caadi lagu doorto axmedow igama reekartii waa ka reekartaa ku yimid raganimadiisa inta kale iyagu aroos xamar laga wada la geeyo ruma sheegina ma wala soo calan umar saalaar kursiga ku fadhiiso laakiin waa madaxweynayaal ma maalmaha la qeylqeylina adigu ku adkayso lin aan legitimate asayna dhowr maal iska joogo nooc dictator waa dadkii meesha joogay ma dooran nimankan inta waa hadlayna ilaahay ma laga cabsado runta la soo sheegay ka soo qaad koonfur galbeed kama imaan koonfur galbeed nima inta laga wada xagga u tagay halka la buri dada kul adeeg wala xal la xiray nima soo fadhiistay madaxweyne afar bari qeylaan naga aamus dadka waa qeylqeylay shibiire raali ma kiin inuu madaxweyne u yahay odayaasha kiin doo raali ma kiin runta iska sheegay adafta wariyada waxa laga yaabaa in koonfur galbeed ka timid legitimate qofka aad leedahay wax uu saxiixay laftiisa ka hadal ma waa masantahay laakiin hadda waa madaxweynayaal shaqadan ayaga wada waa magacaana wax la aanay dhamaan waxa sharci ahayn wax la aanay dhamaan marka wax la aan madaxweyne kale ma hayno marka doodaas marka la ka dhigaynaa marka la ka dhigay laakiin wax jira waa waaqaca ka talaab heshiiskan la gaar hadda oo doorashada noocan doorashadan heshiisku magaca doorashada dad lama ilaa heshiisku waa tabeelle wax ku dhex jira ma naqaan daama khaayad tabeelle banaanka aad aragtid oo wali aan la furin oo cuntada hebel laga helaa lagu yiraahdo gudaha aad furtana wax ugu tagi weyska war anaka tabeelo qurxan oo 15 aan oo soo dhajiyay wali dhaxdiisa ma naqaano marka gudiyada la dhis oo process ku bilowday aan ogaanayna cuntada maqaadata hadda ma ogaa karno waa gartay 15 kaas oo sacbayna in wanaag yimaadana qof kasta sida uu sheegay ma aha inaan leenahay heshiisku haddii horta beel critic aad ka samaysid macnaheedu ma inaad sheegay mucaarad ku tahay ama diidantahay war inta ka sii wanaagsan hala suubiyo war kasta hala sox iyo runta in la isaga sheego haddii runta wax la soo qariyo xalki ma imaanayo barnaamij guud in wax la soo saaro dad isku yimaadeen oo qaarkood ayna legitimate sugooda oo qaldan yahay oo waxa legitimate ay soo saaraan jujub u laqwaa waxan marka xoga biyahana ku laqsiyay waxyaana la dheesigiisa u laqo xukuumad ma jirto xukuumadda qayb kama ahayn heshiiska hadda la saxay madaxweyne wasaare waa cusub yahay sidee ra'iisul wasaaraha cusub hadda imaanaya heshiisyada isku la jaanqaadi karaan ra'iisul wasaaraha markii la keenayo waxa lagu keenay waxa aan suubiye iyo fulwaba nin oo dhahay waxaan dawladda ka maqneed sharciyadeeda wax ka dhaweyn dib loogu naqdo lama keenayo horta waxa la keenay nin meeshii joogto kala qabsa waxa lagu dirana suubi waa dareemi kartaa wax cusub hadda oo inta xukuumad suubiyo xukuumadda loo bandhigayo oo leeyahay wax ka soo bedela maxaad fuli kartiin maxaad fuli karina meeshii ma yaalin hal heshiiska la gaaray yaa gaaray maamul goboleedyada hadda dad xildhibaana hadda caawa kale invita la bixi kara caawadan oo og inay xildhibaan soo noqon doona waxa diininku ka hadlay dananigu ka hadlay shalay guddoonka baarlamaanka oo la kursiga xagga oo kala soo cararay xagga jira ha soo naqsado lama dheeno waa soo galaa ama meeshuu jooga aan ugu taga gacan ku siina ninkaas la tartami lahay ee laga yaabo beeshu inay rabto oo ka rajo fiicnay maxaa u soo baxay in oromay oo dooran yahay ninkaas
maamul goboleedkaas isdhahay ergaa la badiyey waxay yaraynaya hal laaluushka boqol iyo kow qof lama laaluush karo boqol iyo kow qof laaluushka ma rabto halka gudoomiye goboleedaha kaa raba bis hadday ka fududa markii asaa awood badan haysto iyo guddiga dowladdu ay magacaawda ninka u madax laba qof lee lacag siinaya meeshana lacag inay shaqaynayso waa dareemi kartaa wax un ha soo baxaanay ka tahay dadka wax un ha yimaadeen yaan dagaal dhicin laakiin dagaal afka uma roona laakiin haddii cadaalad darrada lafteedu biyaha meelay ku karkaraan ay xad gaarto dagaal adna waa ku weysa qaadanaya waa la hubaa kaas marka in ilaahay naga hayo laakiin waxayna ku xirantaa saad cadaalad u samayso laakiin wax badan saameyn kuma yeelan doonto ma ku yeelanayso kala qabsan ka bixiya maxaa dhici kara doorashada professor Yaxyaan ku hormaraa sawir adoo ka bixinaysa waxa dhici kara ku sheega anaka hadda boonti ugu fiicnaa oo taabta ananka iyo heshiiskeena ku mashquulnay yaa ka dambeeya isma weydiin horta afeefna aan ka hormaraya wax akhyaar loogu maamalay tira Soomaalida dad kula qalabsay nima xaaskiisa wuxuu soo iibiyay hal darsin oo kastuuma ah oo wada kalarkooda isku mid iyo gaduud wada ah markaas tir waxaan hadaa gashto dadka ila yaabay waxa leeyahay maalin kasta isku tiila wadataa dadkee oo yiri marka ila yaa kala ahayd in arkaan anaka marka siyaasiyiinteen kulligood kastuumooyina waxa uu soo galiyay wadamada uu sheegay Carab to Yurub hadaa tira war siyaasad Soomaaliya ka shaqeey beesha caalamka ay arkayso ila wax uu soo xirtay waxa aad sheegaysa marka waa in koow horta beesha caalamku kastuumada ay u gali doonto siyaasiyiinta ma doonto ama ka muhiimsan kuwa anaka aan samayn doono dadkaas marka hadda badan waa iga dacwadeen qurba joogta ma rabo inaan wax weyn ka sheegay qurba joogna wad hal wadan oo kiibin Soomaa hadda magaalada waa boqolkiiba 30 heli maayaan ismalihi waxa single mother joog hadda balka bariyan ma fiiris waxa naag afarta ka weyn oo dhan waa joogtaa hadda kulligood garuuma qaata horta waa soo heli lahayn waxay ku xiran laakiin nasiib darro odayaasha dhaqanka wax dooranaya qof dumar kuma jirto ismalihi marka wax nadiif oo cadaalad ku dhisan oo fiican ah soo bixi doona ka macallimiin noo yeerinaysa hadii jawaabtu beesha caalamka waa aqsam walaal maanta waxay leeyihiin waxay rabeen one vote ka muuqata rabid iyagu ay rabaan ma ahayn bishi 1 milyan barwa ku bixis lacag 80 milyan ka badan doolarka laga soo qaaday nimanka xalalo caalamka keen lacag Soomaaliya wan maana qabana keen dhaay 80 milyan soo qaaday maxay u sheegayaan waa laga naqday hal suuragal ma ilaa qorshe been hadii uu dalulay asigi waa inuu cudur daaro marka Soomaalidu iyada go'aan u gaartay marka waa ku maasay diin inuu xasuusiyo yaa la hilmaamin labiska beesha caalamka ee dad badan u soo gali doonto aan laga yaabaa in ka awood badiso ma Carab kale Itoobiya Kenya Mareykan Ingiriis dadka waa la soo wada labis laakiin dadka hoos laga fiirin siyaasiyiinta waa maansan waxa aniga economist luqad siyaasi baa qaar laakiin aragtidaada ila runta iska sheegtaa fiican adinka saxaafadda tiin heshiiska waxa ku jira saxaafadda in loo madax banaayo in kan la yeelo aad ugu farxadeen maxaa lagu khatimo si waafaqsan sharciga saxaafadda la yiri sharciga saxaafadda waa ka usbuuc kor aad ka qaylineysay laftiisa hadhow asiga lagu waxa ku baahdan ilaa wax inta lagu soo qurxiyo tiri si transparent ah ka hadla saxaafadda doorkeedii ilaa sharcigaas wax laga bedelo doorka loo baahan yahay ma qaadi kartiin adinka laftiina Allah laga cabsado ummadan maslaxadeedana laga fikiro runtana hala soo sheego sida waaqica la ogaa ee dhabta ee ummadda ku sabata bixi karto hana qato waxa laga hadlayo doorashadan extension halka ilaaliyo 8 Febraayo waxa ka dambeeyo dad siyaasiyiin badan dhahay dawlad kale ka dhinac dhaalanayso afar shan dawlad ay ma karto horta extension security council kuna iga abiir mar extension lama ogol extension oo wuxuu kamid yahay waxyaabaha dhagaha loo taagay extension technical ku yimaado gooni waa farsamo 2 bilood shaqadii socoto waa dhig kara wallahi 3 bilood lagu daro laakiin extension la sii go'aamiyo iyadoo shaqo u bilaaban kaas waa feeraha la iska tumo keenaa